Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta YouTube channelka ku xiran waan idin salaamay. Maanta waxaan ka hadli doonaa application-ka Somali Serif sida la iska diiwaangeliyo. Application-ka Somali Serif waxaa ka helaysaa Play Store-ka, waxaa lacagaha ka sarfanaysaa. Sidoo kale link-yaada lacag waa ka samayn kartaa adoo asxaabtaada la wadaagayo. Qof walba link-gaas iska diiwaangeliyo mar walba oo lacag ka sarftana waxaa ku leedahay commission. Exchange walba uu sameeyo lacagaha balance-eeda ku soo galayso. Hadda waxaad sameynayna qaabka iska diiwaangelin lahayn ayaa mari doona iyo qaabka lacagta ugu sarfin lahayn ayaa hadda waxaan rabnaa qaabkan kugu soo baxaya. Ugu horreyn waxaad taabanaysaa saddexdaas dhibic kor aad taabanaysaa, kadibna register waxaan dhan kugu soo baxay page-kan dhan. Kadib waxaad taabanaysaa register. maadaama aad rabtid inaad iska diiwaangeliso waxaad taabanaysaa register. haddaa hore iska diiwaangeliso waxaad taabanaysaa log in. mar walba iska diiwaangeliso log in aad taabanaysaa, kadibna akoonkaada toos aad tagaysaa. Ma fahanteen? hadda waxaad taabanaynaa register aad taabanaynaa inaan iska diiwaangelinaa rabnaa. kadib meeshan waxaan ku qoraynaa email-kana maya inta waxaan ku qoraynaa meeshan waxaan ku qoraynaa username. Maxaa waa naanaystaada camal ama waxaa la ama tusaale waxaa dhahaynaa Mucaawiya saas markaa ku qortid xarfaha dhan meeshan ku jiraan waxaa la rabaa in aadan xarfaha yaryariiska kuwa capital-ka ma ahan kuwa small-ka la rabaa. Ma fahanteen? M-ta capital hadaa ka dhigtid khalad lagu dhahaa, M oo yariis saas ka dhig. Ma fahanteen? Mucaawiya saas oo kale meeshanna email-kaada ku qoranaysaa. Email-kaada wuxuu yahay waa garanaysaa mayno meeshan email-kaada gelinaysaa. kadibna waa kana email-ka markaa gelisid kadib meeshan country waxaa gelinaysaa automatic kuu qoraa. Ma fahanteen? adiga kama baahnaba meesha joogto soo kuu qorayba. kadibna meeshan waxaa gelinaysaa nambarkaada, kadibna meeshan waxaa gelinaysaa nambarkaada. for example 6 xal ka bilaabaysaa furaha 2 camal 0091 saas camal. meeshan waxaa gelinaysaa password-kaada for example Mucaawiya 123 ka dhigatay. waxaan tusaale leeyahay adiga magacaada meeshas ku qoranaysaa, qof magaciisa kuma qoranaysid. adiga magacaada oo isticmaashid ayaa halkaas ku qoranaysaa intan basti. kadibna markaa saas soo gelino password-kan inta gelinayna inta sii gelinayna, kadibna calaamadan sax saaraynaa. Ma fahanteen? calaamadan sax saaraynaa kadibna waxaa taabanaynaa register taabanaynaa, kadibna save aad dhahaynaa hadhowti si mar walba automatic u galno. this email has been taken ku dhahay email-kan hore loo qaatay uu leeyahay. Ma fahanteen? hadda marka ku celinaynaa email-kaada hore loo qaatay email hore ugu samaysan kuma samaysan kartid. email-kaada la rabaa oo aad weligaa ku samaysanin. Ma fahanteen? save hadda email-ka waa bedelni save aad dhahnay. kadib meeshan waxaan ku qoraynaa first name magacaada aan Mucaawiya iska qornaa. meeshan last name yar camal magaca aabaha camal waaye. meeshan address-na Muqdisho la iska qoranaysaa. meeshan state-na Banaadir waxaa rabtaa ku qoranaysaa. khasab ma ahan wax khasab la dhigayo ma fahanteen? zip code-na 1234 intan waxaa ku qoranaysaa Muqdisho. wax khasab la dhigayo ma jirto, khasab ma ahan. kadib meeshan aad dhahaysaa submit. hadda wixii ka dambeeyo Somali Serif ayaad iska diiwaangelisay. waa kana waxaa exchange waxay samaysaa zero waaye maadaama hadda ku cusubnaa. meesha lacagtaan nuu jirto waa kana ma jirta eber waaye. haddii lacala oo meeshan taabano korkaas falaarta taabano kadibna aad taabano link aad taabano waxaan ku arkaynaa meeshan link-ii aad lacag ku samayn lahayd aan ku arkaynaa. meeshan waa kana ma jirta link inta halkaas taabanaysaa copy ku dhaamay marka asxaabtaada share gareynaysaa. kadibna hadday iska diiwaangeliyaan oo kadib app-ka soo degsadaan oo kadib lacag ka sarfisaan lacag walba mar walba ku sarfiro lacag ku soo dhacaysa commission. okay waxaan rajaynayaa taas inaad fahantay. kadib hadda waxaan rabnaa inaan lacag ka sarfino. kadib waxaan ku laabanaynaa home aad taabanaynaa. meesha home-ka taabanaynaa marka lacag sarfinaysa home-kaas taabanaysaa. inta marka aad dooranaysaa select one-kan meeshan select one ay ku qoran tahay ma jirtaa hadda ku calaamadeeyo select one-kaas lacagta soo diraysid aad dooranaysaa iyo select two one lacagta loo diri lahaa waaye. Ma fahanteen? select one-kan tusaale
EVC Plus haysataa, waxaa rabtaa OneXBet camal. Tusaale meeshaan lacagta meeqa rabtaa? $1 ma rabtaa, $2 ma rabtaa, $3 ma rabtaa, $5 camal ku qoraynaa. kadibna meeshaan waxaa ku dhufanaynaa exchange aa ku dhufanaynaa. kadib markaa exchange ku dhufno waxyaalahan noo soo baxaya ma fahantay. meeshaan waxaa gelinaynaa OneXBet wallet ID, macnaha OneXBet ID gaadii lacagta lagu soo diri lahaa meeshaan gelinaysaa ma fahantay. ID gaa lacagta lagu soo diri lahaa aa meeshaas gelinaysaa. kadibna waxaa ku dhufanaynaa markaa gelino confirm aa dhahaynaa. kadib confirm lacagta waxaa ku diraysaa nambarkan. EVC Plus aan haddaa isticmaasho waxaa ku diraysaa kan, Somnet haddaa isticmaashana waxaa ku diraysaa kan, Jeb haddaa isticmaasho ma fahantay. hadda EVC Plus isticmaalona maana kaasaa copy soo dhahaynaa, kana copy soo dhahaynaa. kadibna okay ku dhufanaynaa. kadibna intaa paste saan ku dhahaynaa paste. kadibna inta lacagta ku qoraynaa $5. kadibna okay ku dhufan doonaa marka okay. kadib waxaa ku leeyahay pinkaada geli, ma hubtaa wax kaga iibsato Somali Sarif Online. kadibna pinkaada gelinaysaa ma fahantay. pinkaada geli kadibna waxaa sii taabanaysaa send. hadda waa dirnay lacagta waa dirnay $5 ma jirtaa, $5 waa dirnay. kadibna app-ka kusoo laabanaynaa. kadibna app markaa kusoo laabano kadibna meeshaan nambarka lacagta kasoo dirtay aa gelinaysaa, eber hal camal hal or kadib nambarka lacagta kasoo dirtay markaa gees kadib waxaa dhahaysaa submit, waxaa taabanaysaa submit aa taabanaysaa. hadda wixii ka dambeeya marka waa dalbatay lacagtaada ma fahantay. hadda inta waa kana waxa waaye pending. daqiiqado kadibna approved aa kusoo qormayso lacagtaada waa la diray camal. hadda daqiiqad kadib waxaa dhahaynaa refresh, kor aa soo jiidanaa, refresh aa dhahaynaa. waa kaas hadda approved ma jirtaa, waa la aqbalay, waa la diray camal lacagta akoonkaada ka fiirso waaye. haddaa rabtid meeshaan kan printing aa soo degsan kartaa, lacagta lagu diray aa ka fiirsan kartaa. printing aa soo degsan kartaa, lacagta lagu diray ama download aa ku dhufi kartaa ama print aa ku dhufi kartaa, no problem ma fahantay. kadibna file-ka waa kugu soo degi, waxaad tegaysaa meeshaan oo file-asha ku jiraan aad tegaysaa. kadibna documenti aa kasii dooranaysaa, lacagta lagu diray aad arkaysaa marka. kadib meeshaan ku dhufaysaa, kadib PDF aa kusii dhufaysaa. kan lacagta inta lagu diray warqadda kuu sheegaysa leh waaye, wax muhiim ma ahan ma fahanteen. waa kana warqadda ma jirtaa, waa kana lacagta lagu diray waaye. ID OneXBet oo lagu diray waa kaasaa ma fahantay. ID OneXBet oo lagu diray waa kaasaa, qaabkan warqadda leh waaye iyo by Somali Power. okay Sarif markaa ku shubanaysid qaabkaas aa loogu shubtaa. markaa la bixaysid maxaa sameynaynaa, waxaa taabanaynaa koodii home. haddana sida OneXBet loo baxo ayaan ku tusaynaa. okay waxaan sii taabanaynaa select current oo koowaad. maanta OneXBet aa soo diroynaa, OneXBet haysanaa, waxaan rabnaa EVC Plus inaan noola diro EVC Plus. kadibna meeshaan waxaan gelinaynaa tusaale ahaan $10 aa la bixinaa. kadib waxaan ku dhufanaynaa exchange, waxba kaama jaranayo app-ka. kadib exchange markaan ku dhufno kadib meeshaan EVC Plus kaada ku qoranaysaa ma fahantay. kadibna waxaan ku dhufanaynaa exchange, confirm exchange. kadibna meeshaan withdraw code iyo ID OneXBet kaada gelinaysaa. koodka maxaa waaye tusaale ahaan aan ku tusaa, withdraw code-ka midkaan waaye, withdraw code-ka maxaa waaye midkaan waa ma jirtaa, iyo ID OneXBet waa kaas aa ku qoraysaa ma fahanteen. withdraw code-ka maxaa waaye BGRX maayno kow. hadda straight-ka lacagta ku diraysaa, straight-kana copy dhahaysaa ma fahantay. city Mogadishu Banaadir waa straight-kaas copy dhahaysaa. kadib OneXBet kaada tegaysaa, kadib waa kusoo diraysaa. kadib koodka markuu kuu soo dhaco aa koodka inta gelinaysaa. koodka waa midkaan ma fahantay.
Koodhkaas waaye tusaale ahaan waaye mafahmeysiino BGR BGRX tusaale leh adiga kuu fahamsiiyo ID one-space-kana waa kana kadibna waxaan ku dhufanaynaa submit kadibna waxaan ku dhufanaynaa submit aan ku dhufanaynaa okay kadibna submit aan ku dhufanaynaa kadibna waa kaasaa iyadana way kugu abuurantay hadda kadib marka EVC plus la sugaysaa ma fahantay waa kana marka kan pending waaye daqiiqada kadibna iyadana waa kana pending waaye daqiiqada kadibna iyadana waa kusoo fasaxmaysaa kadibna refresh dhaynaa koraa soo jiidaynaa camal kadibna hoos fiirinayna hadda waa kana majeedaa approved waa la aqbal waaye lacagtaada waa lagu soo diray EVC plus kaada waa lagu soo diray iyadana one-space qaabkaas loola baxaa waxaan rajeynayaa inaad wada fahanteen dhammaantiina insha Allah haddii su-aal qabtiin jaadkan haddii qofkii su-aal qabo meeshaan aad ku dhufto kadibna si toos ah ula xiriiro jaad waa kana caadi ula xiriiri kartaa meeshaan ya la iskii qor send dheh kadibna meeshaan caadi majeeda assalaamu calaykum waa dhihi kartaa assalaamu calaykum haddii caawinaad rabtid meeshaan lagaa caawinaya ma fahantay Soomaali qofku hadlayo wuu kugu soo galayaa kadibna caadi saas lagu caawinaya waa haddii caawinaad aad rabtid waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen qodobkan iyadana tusaale kale aan ku talinaysana Dogecoin sidoo kale waa ka sarfan kartaa Soomaali sarif Dogecoin waa ka helaysaa Tron waa ka helaysaa waxyaalo badan waa ka helaysaa ma fahanteen intaas kaliya ma ku eka sidoo kale waxaad taabanaysaa EVC plus aad taabanaysaa kadibna lacagta rabto Dogecoin haddaad rabtid select Dogecoin meeshaan aad taabanaysaa marka Dogecoin waxaad dooranaysaa marka Coinbase meesha ku qoran tahay ma fahantay ayaad dooranaysaa Coinbase aad dooranaysaa marka for example waxaad rabtaa 7 Dogecoin kadib 7 Dogecoin haddaad diraysid 7.7 waaye haddaad diraysid $7 helaysaa kadibna waxaad ku dhufanaysaa cash changer minimumka waxaa waaye $5 okay kadib meeshaan waxaad gelinaysaa Dogecoin-kaada wallet-kiisa gelinaysaa for example inta trust wallet kadibna waxaan ku dhufanaynaa Dogecoin aan ku dhufanaynaa kadibna waxaan ku dhufanaynaa receive it aan ku dhufanaynaa kadibna waxaan ku dhufanaynaa copy aan ku dhufanaynaa kadibna waxaan kusoo laabanaynaa Soomaali sarif kadib meeshaan adresska paste ku siinaysaa meeshaan coin-ka aad rabtid coin-yaal badan haddaad Bitcoin rabtid waxaa la magaciisa ku qoraysaa adresska Bitcoin aad soo dhigay hadda anka adresska Dogecoin aan soo qaadan mayno meeshaan marka waxaan ku qoraynaa Dogecoin kadibna waxaan ku dhufanaynaa cash changer confirm cash changer aan ku dhufanaynaa kadibna sidoo kale kana copy soo leedahay waa ka sii mayno hadda isla video aan lagu dhex sheegay copy soo leedahay kadibna inta imaanaysa okay kadibna lacagta paste leedahay kadibna lacagta la diraysaa 7.7 mayno aad diraysaa kadib 7.7 markaad saas u gelisid Soomaali sarif online lacag kaga iibsanaysid kadib pinkaada gelinaysaa kadib waa kana lacagta waa dirto okay aad leedahay kadib akoonkaada ku laabanaysaa kadibna kan EVC plus oo lacagta ku dirnay Somnet haddaad rabtid waa ku diri kartaa isku hadlaa meeshaan nambarka lacagta ka soo dirtay aad gelinaysaa ma fahantay nambarka lacagta ka soo dirtay aad gelinaysaa kadib waxaan leynaa submit aan leynaa hadda waa kana waa dalbanay kadibna daqiiqado kadibna way noo soo dhacaysaa hadda inta pending waaye daqiiqado kadibna approved waa lasoo approved gareynayaa kadibna refresh aan dhaynaa kadibna waa kana waa lasoo approved gareeyay majeedaa waa lasoo approved gareeyay waxaan rajeynayaa intaas inaad si fiican u fahanteen dhammaantiina alaas tusaale inaad si fiican u fahanteen ayaan rajeynayaa hadda shopping aan ku dhufanay marka
haddana Dogecoin sidee ula bixinaa markaan waxaa waaye Dogecoin sidee ula bixinaa oo Dogecoin haysanaa EVC Plus rabnaa halkaas ku dhufo select currency kadib ka dooro Coinbase ka dooro kadibna halkaan ku dhufo select currency kadibna EVC Plus lagu soo diraayo ka dooro EVC Plus kaada EVC Plus waa kana kadibna meeshaan lacagta ku qor lacagta meeqa ku qorina tusaale $11 waa $11 aan fahanteen ama $10 iska dheh kadibna waxaan ku dhufaneynaa exchange ku dhufaneynaa okay exchange ku dhufaneynaa kadibna EVC Plus wallet kaada ku qoreynaa meeshaan yacni nambarka lacagta lagu soo diri lahaa waaye nambarka lacagta lagu soo diri lahaa waaye ma fahanteen kadibna waxaan ku dhufaneynaa confirm kadibna confirm ku dhufanay kadib maxaa noo soo bixi doona kadibna waa kana page kana noo soo baxa ma fahanteen hadda Dogecoin aan diri rabnaa ma kadibna waxaan ku dhufaneynaa Dogecoin aan ku dhufaneynaa Dogecoin kana ku dhufaneynaa kadibna waxaan ku diri rabnaa $10 kadibna address-kana copy dheynaa address-kaas copy dheynaa ma fahanteen hadda Bayer lacag igu jirtaa Bayer ka dirayaa marka kadibna address-kiisa soo copy inta paste ku dhahayaa kadib waa soo baxayaa lacagtan markaa Coinbase isticmaaleysid alaas lacag leh copy soo leedahay kadibna aa ku diraysaa alaan Dogecoin $10 u dhigantaa ma fahanteen $10 u dhigantaa marka meesha ku qoran $10 u dhigantaa alaan Dogecoin copy dheh kadibna halkaan paste ku dheh oo kore haddaad Trust Wallet ka diraysid iyo haddaad meel kale ka diraysidba waa isku hal ma fahanteen kadibna waxaan ku dhufaneynaa transfer kadib waxaan kusoo dhufaneynaa confirm Trust Wallet qaabka loo diraa iyo waxaalahaas waa garanaysaa soo ma kadib confirm aan ku dhufaneynaa lacagta hadda way dirantay mujeda dhoon aa lasoo saaray marka app-ka ku laabaneynaa asaa checking gareynaya marka lacagta markay dirantay asaa sheegaya marka geedkaas wuu wareeganaya markuu lacagta uu helo asaa automatic kugu sheegayaba you have received camal okay waa sugaynaa weli wuu checking gareynaya ma fahanteen lacagta haddaad soo dirtay wuu kuu checking gareynaya asxaabta waa kana mujeda thank you can notification lacagta way baxday hadda ma fahanteen lacagta way heleen marka lacagta oo la helay saana kugu soo qormaysa ma fahanteen okay hadda pending ay ku jirtaa waa la checking gareeya waxaa still confirmation ka socda marka coin la diraayo saas waa lagu confirmation gareynayaa marka lacagta saas u dirtid kadibna EVC Plus kaada automatic ayuu kugu soo dhacayaa marka waxaan rajeynayaa inaa wada fahanteen dhammaantiina oo hadda waxyaalo badan fahanteen qaabka la iska diiwaangeliyo qaabka OneSmith loogu sarrifto qaabka Dogecoin loogu sarrifto iyo qaabka oo caawinaad loo weydiisto waxaas dhan waa wada fahanteen aan rajeynaa insha Allah waqtigiina waa nigu dheereeyay raalli noqda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.